مدحوينه ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici wasiirka wasaaradda macdanta wasiirka wasaaradda biyaha iyo kheyraadka dabiiciga Xuseen wasiirka dowlaha wasaaradda maaliyadda Mr. Cadaani libaanada labada kale maamulka gobolka iyo degmada professorada jaamacadda iyo salaadiinta iyo culimada iyo shacabweynaha ay soo fadhiyeen qiimaha badan ee boorama dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh hambaliyada iyo umahadnaqa waan la qabaa odayaashii ugu horreeyey iyo dadaalka ay muujisay shirkadda shaabo waan uga mahadcelinaa waan ugu abaalaynaa waxaa ila socda laba iyo waftiga ka mida laba wasiiroo labaduba reer bari oo waxaan isla malaha kelmad waxaa lagu siiyey barigana faan badan baynu ku naqaanaa ha u yar faanaanaysiin marka weliba faankii iska baynayjarka ahaa ee bariga maahay ku waaqaca ku salaysan baan iska faanaynaa nin baa ila soo hadlay maalin reer barigaas wuxuu yidhi warnimayow nimankiina reer galbeedka ah faanka ma in kharash idinku weydiinayaad moodaysa war bahalka cidinma laho cidina kharash idiin qabsan maysee iska faana buuti markaa mar haddii aan waxa kharash halay nagu soo dallacaynin waan ku dhega barjaynaynaa maanta mudane madaxweyne gobolka kan awdal guud ahaantii aan isku dare waxaa laga markhaati kacayaa oo dee aan la boonbooninay inay waxaa la yidhaha state buildingka dowlad dhisidda hormood ka ahaayeen inay dariiq dhisidda hormood ka ahaayeen inay waxbarashada hormood ka ahaayeen inay biyaha hormood ka ahaayeen haddaba waxaasoo dhan maxaa dhisa maxaa keena caqli baa keena cilmi baana fuliya madaxweynuhu ugu faani kari maayo meeshuu ka soo jeedaaye wasiir cadaani madaxweynaha waxaa tiraa caqligii iyo cilmigii Somaliland baan maanta booqday markaynu ku noqono caawaadii la yidhaahdo intaas waa iga fadhiya message-ka u weyn ee culuseen xukuumadda maanta faraya waxa weeye horta nimeeyo hawdee xukuumadda aanu xisbigeeda maanta ka tirsannahay shacabkuuna ma tunne waxa idinkaga maqanna waan ka doonnaa laakiin dee wadda hagaagsan baanu marnaayo ka manfac badan tii hore taqaaniin waxaan maanta halkan xukuumadda ka faraya sanduuqa la yidhaha Somaliland Development Fund oo dhowr iyo 50 milyan ku jira caqli maaha suurtagal maaha mana qabato 400 baa biyaha boorama gobolka dhan kaga jira ma aqbali karayaan anigoo ku hadlaya dareenka shacbiga Afrika qofku markuu wanaagsanaado ardayga wanaagsan ee waxbarashada fiican jaayisad baa la siiyaa waa la abaaliyaa haddii la yidhaahdo ardaygaasi wuu shaqaystay ka saaqidka ha la abaaliyo waxbarashada hoos u dhacaysatay waa la wada saaqidaya marka waxaan leenahay haddaan biyihii qabsanay in la abaaliyo oo dhaqaale lagu bixiyaan xaq u leenahay haddaan jaamacadihii qabsanay in dhaqaalaha wax loogu daraan xaq u leenahay marka encouragement buu gobolkani u baahan yahay andaya gada bursu uga dhaxaysa salaasaniyo naga taagay marka anigoo aad u hambalyeynaya xukuumaddu waxqabadkii inta ay jirtay abaalmaguda waa wicil baa layidhi waan ka abaal celinaynaa waan ugu mahadnaqaynaa waa muddadaa 60 sano dhowdhow ee ummadda Soomaalida la yidhaha dowladnimada haysato markii ugu horreysay magaalada boorama dariiq laami soo galo xukuumadda maanta joogtay madaxweyne ku-xigeenkeedii ka fadhiyo waa ugu abaalaynaa waan ugu mahadcelinaynaa waana ugu abaalgudaynaa waxa kaloo iyadana halkan uga abaalgudaynaa uga mahadcelinaynaa intan aadka u dhimatay dariiqii ee quruxdii dariiqaasi soo saari lahaa caqabada ku ee dila iyo kala baydh u dhaxaysa ee wada godka noqotay ee qofkii u soo raaxo tagi lahaa isaga oo aan tabcaan dareemin markii dariiqaas Cabdiraxmaan markii ka warramay aan bilaabaynay anagu berigii economically value-giisa uu dariiqaasi dhaqaalaha waddanka gobolkan uu ku hayay iyana hortimitay sababtuna waxay ahayd waxa kaliya aniga emotionally moralkaygaba kiciyay ee aan sida madaxa ugu galay magaalada wajaale la yiraahdo magaalo ganacsi boorama waa magaalo ganacsi labaduba marketka Ethiopia ku xidhay dekada barbarayna wada isticmaalaan oo uga soo tagaan wajaale waxay barbaro u jirtaa 250 km 250 km boorama 270 20 km bisleeni haddana nooliga gaariga markaad ka soo kareysanaysa barbareed wajaale ku wadan $8 buu tan ku ahaa markaad boorama ku soo wadana waa waqtiga 2002 $17 buu ahaa because of 20 km rafqa horta caqabadaas uu ku hayay dariiqaasi degmadan iyo gobolka oo waxa aan madaxda ugu galay ee caadifadana dhaqaaqsay taas waa koow
طريقي نوعها قروح ديسي iyo muuqashadiisii yani in laga faysanayo dhibtii halka lagu qabay maanta waxa caqabad ku ah dilay iyo kala badintii u dhaxsoo baabaa waxaan xukuumadda maanta taladaysa uga mahad celinayna inay u qorshaysay lacag $2 milyan ku dhow oo transferka leeyahay laga bixinayo in la dhamaystiro dariiqa dilay iyo kala badin haysa ma ilowsanina taana wasiir waxay oo kuna laakiin xuquuqda badan ee tabayna ama waxaanu isleenahay sanduuqa waa kula haydeen de inta yar noo dhibtay naga maqarnaysa oo kuma santiin inaad soo kordhin doontaan hadalkeed ku dheerayn maayo ku soo dhawaada gobolkii awdaleen laga soo doortay mujtamacii qiimaha lahaayeen doortay baan hor fadhinaa waa naga xaqiiqsada aan halkan hortooda uga hadlayno inaan xafiisyadiina inay kula hadalno laakiin waxa la yiraahdaa orodiyada ayaan badan oo badan fiiraa oo santiin